الله هون حريستي وحا أصقر اللي قسمي مقالة هرقيسة خطر الظاهر عقا الله هون حريستي خطر الظاهر عقا أيام ما أنت أصقر وقوي مقالة هرقيسة aaskaasi qaran waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland xubno ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland golaha guurtida Soomaaliland golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala socota lamaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha kale ee dalka ku sugan xubnaha Soomaaliland fanaaniinta diiwaanada Soomaaliland ee ku dhaqan shacabka magaalada Hargeysa iyaguna si ballaaran ugu qayb qaatay aaskaasi qaran haddaba ugu horreyn waxa tacsi iyo ducada halkaasi loogu bariyay Allah inuu naxariistii janno firdawsa ka waraabiyo khadra daahir ciga ka tacsideeyay ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxday iyo ubadkeediba qaar ka tirsan mas'uuliyiinta Soomaaliland ugu horreyn waa xildhibaan Saciid Cabdisamed Axmed Saciid Curi oo ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxaan ku sugannahay hoygii dhabta ahaa ee khadra daahir ciga oo ahayd muuminad laga yaqaano dhammaan geeska Afrika waxa af Soomaaliga ku hadlo dhami ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo iyo dhammaan intii kale ummadda muslimiinta ee dhimatay khadri waxay ahayd horaan u sheegay tiir weyn oo ka baxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed khadri waxay ahayd geed weyn oo hadh qabow oo damala oo cid waliba hadhsato khadri waxay ahayd qof naxariis badan khadri dad fara badan oo anigu aan ka mid ahay oo darajada aan maanta taaganahay igu dhiiri gelinaysa bay ka mid ahayd ilaahay waxaan ka baryayaa in camalkeedoo saalixa midigta ilaahay khadra ka saaro ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay qabriga u nuuro ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannada jannatul firdaws jannatul a'la ilaahay geeyo dhammaan ummadda muslimiinta ee afka Soomaaliga ku hadashiya muslimiintabana ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo gaar ahaan ubadkeedii hodan lahaa hiba lahaa maxamed ahaa oo imika xabaasha inagula sugan iyo labada inan ee kale maqashanta caruur ee khadri ka tagtay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu samir iyo iimaan كسيو صادقة إن لله وإنا إليه راجعون مدحوينك وحجانك جمهورية الصوماليلاند عبدالرحمن سيلعي أيا إسوقنا الله وقبري خطر الظاهر عيقا إنو إلهي جنة فردوس كورابيو وبدكيدي إيو لما أهلكي قرابضي كتعسيدي إسلام مركزنا شعبوينها الصوماليلاند تعسي وقدرنا وقبري إنو إلهي جنة فردوس كورابيو متلية قرنك الصوماليلاند مركان مدحوين جمهورية الصوماليلاند متلية وحانا كان تعسي دريا qoyskii eheladii ay ka baxday qoyskii ehelada ka baxday ilaahay samir yimaan dhammaan shacabka reeban ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun khadra daahir ciga cali ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo ducay nagu leedahay inaynu u ducayno ayay runtii inagu leedahay waajib inagu ah ducada wixii ka sokeeyay anigu kulley taariikh nololeedkeedii odayaasha inta badan sheegay waxa kaloon inta Muuse Cali Faruur sheegay ku daraya radio Hargeysa khadri waxay ka ahayd narrator mar bay wariye ka ahayd waqtiga dhalatay waa 1958 iyadoo yar bay fanka ku soo biirtay waqtiga dhalatay waa 58 intii wixii ka dambeeyay 2004 wixii ka dambeeyay fanka kulli shaqo kuma ilahay qof iska cibaadaysta oo marwo oo degan ayay ahayd ifka 5 caruur way kaga tagtay 3 wiil iyo 2 gabdhood ayay kaga tagtay oo qaarkood reer leeyihiin waxaad gabadh marwo oo dhisan oo dhaqan intii dambana qof kulli cibaadada ilaahay aad ugu dadaala ayay ahayd way soo xajtay kulli intaan ugu hay 3 goor xaramka ilaahay way tagtay dambilaaf maxaan ku leeyahay ilaahay ha uga dhigo ha siiyo إلهي نحرس شأن خضر الظاهر عقاه كورابيو وإنا إليه راجعون إلهي خضر الظاهر هاو نحرسته قف مروءة تاريخ ضدك صوماليات كله فنك تاريخ كله ضدك وناق فريجرتي أي هاي وحوناك سنة بدن وحوناك سنة فربضن بيكشاجين ضدك جرني ضدك معارف تلاها
oo ay ka mid ahaayeen muuse cali faruur oo imika halkan ka hadlayay ilaahay wanaaggaa laga sheegay ha u rumeeyo maanta waxa kaliya gaadhaya waa ducada in loo duceeyo in ilaahay u naxariisto ilaahay jannadii geeyo ilaahay dembigeeda dhaafo innaguna aynu maanta inteena halkan timi erge ilaahay uga noqono in ilaahay uu naxariisto oo godka u nuuro inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun الله ونحرسته الله ونحرسته آمين وما شاء الله ونحرسته آمين أنت إذا الله ونحرسته آمين وفقال يا حي مروي يا حي فانك يبشر وحي كل هاي المقع عن قبوبي إلهي وحن كبريها مقعي شرفتي كل هاي اختيك إلى آخر لك آمين إن قبك إلهي واسعيه السؤال إلهي ودبلي بيه آمين أفرد إلهي كورابي آمين أنت مدر خسر داهر وحن برتي تضوات كي يعفرتي برجع يردنا كترتي كل كي هرفنك وحي وهرج عرضك كل كي حقينا وحي جباسة مالك لكن ولا شغينا ولا شغينا وحي وهرجي حسن كيبك حسن كان قال وادي وسويه دمتع الكلوة أيان ما ملك هيستي أنا ماموران اسمع أنا ما نحن أنا ما ملك هو صار هيستي إذا أنت شغال نسوونه عندما أنا أستاذ يقول رئيسي كلك ما يقول سن سهرة ما تكبح هذا يكلم راح يسمى كل شيء أنت تعرف هذه أي بدأ شيء وإذا أنت عنقرنا أيوه اي فنانada igu horeysay iyada inaan hoon guursan oo ruwaan dhigaysa salaada tukan jiray ee jirta muusaw maadu baabaysa salaada in lagu leeyahay aan ogay خسر داهر وحيها إلهي هو نحرسته تيراركي ugu adkaa ay fanku markuu waqtigii dhaxbarayay fanku saddex waqti buu soo maray walaal imika waxay tahay qaraamiga annaga qaraami ma ku sheegan war ma nihin qaraami qaraamigu waa ragii lahaa cali sugulle iyo ismaaciil axmed iyo asmaan gacalow iyo maxamed raggaasaa qaraami lahaa kooxdii ku xogtay kooxdii macallimiinta u badneed faysal cumar ku jiray maxamed warsame ku jiray daran kooxdaasaa ku xigtay annagaa ku xignay maadaama ay wadkayaga ahayd khasrad daahir waxay tiirarkii ugu adkaa fanka hablii looga jeclaa waxaan taagnaa maalin dhaweyto 8 qof oo carruur ah oo ay dhashay gabadhi oo tiri waxbaan la'ahay misay tiri 400 baa siiyey wax kale ma haysaa aniga ninka loo rashiid leeyahay halkan taagan annaguna lacagtaan bixinay maalintaan arkaba wax bay bixinaysay daahir cige in ilaahay naxariistii jina firdawsa ka waraabiyo maanta intaas oo kaliya inoo furan daahir cige ilaahay naxariisana ka waraabiyo jannada firdawsana Allah geeyo su'aashana Allah ha u dhib yareeyo wax kale oo imaka aynu maanta dhahna garan mayno ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo naxariistii janno ka waraabiyo waxay ahayd qof ka baxay qaranka Soomaaliland ilaahay ha u naxariisana dhamaantiisa bariiman Allah inaga siiyo khadra waxa halkan ka tacsiya ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo maanta waa tiir soo mara qof kastoo maanta magaalada Hargeysa soo mara ummadda kale khadra ayuu aad ii weydiin jiray waxay ahayd oo kale sidii imika la sheegay qof mutacaalimada oo iskuulada dhiga jirtay waxay ahayd orodyahan waxay ahayd fanaanad kartida hablaheena lagu marjarto dhamay tusaale u ahayd iyadoo yar bay hana qaaday qof mutacaalimada bay ahayd qof dadka isku wada oo runtii nabadda iyo wada noolaanshaha ka shaqeeya bay ahayd in ilaahay janno firdawsa ka waraabiyo ilaahayna samidii iimaanka siiyo carruurteedii caa'iladeedii iyo dhammaan dadka yaqaanay ee saaxiibka dhow la ahayd